بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan ardayda qiimaha badan leh waxa idin la hadlaya macalinkiina maadada xisaabta halkan idin kala hadlayana waa Somali Academy waxaanu maalintii dhaweytoole soo bilownay oo introduction qurux badan ka soo bixinay wixii la oranayay chapterkii koowaad ee calculus-ka oo inuu niri waxaanu u baahanahay ama prerequisite ah maxay waxa prerequisite ah marka laga hadlayo calculus-ka waliba qaybta differentiation-ka ama integration-ka ama waxa la yiraahdo limits-ka waxa uu ah maaragtay prerequisite waxa uu ah algebrada ayaa ah waxaanu soo qaadanay oo kale wixii la oranayay indices-ka oo inuu si fiican ugu soo nuxnuxsanay isla markaasina rajeynaya inaad daawatay oo aad ila socoto haddii aan daawano videogaas waxa uu ku jira maaragtay channel-ka dib baad u eegi doontaa sida arday badan markaa soo codsadeen insha Allah waxaynu ugu horeysiin doonaa qaybta calculus-ka waxaynu ugu horeysiin doonaa qaybta la yiraahdo maxay differentiation-ka okay marka chapter-keenu waa calculus laakiin qaybtaynu qaadana waxa weeyaan differentiation okay marka differentiation-ka waxyaabaha hoos iman doona insha Allah xooga saari doono waxa kamid ah inagoo eegana differentiation from first principle inagoo maaragtay eegi doona iyo sidii uu marka hore differentiation-ku ku yimi marka dambe waxaan eegi doonaa first derivative okay waxaan la yiraahdo first derivative marka dambe waxaan eegi doonaa second derivative waxaan la yiraahdo aynu eegi doonaa qodobka kale aynu eegi doonaa waxa kamid ah stationary points waxaan la yiraahdo stationary points oo aynu iyo nature-kooda okay aynu eegi doonaa maximum ba minimum ba so point of inflection waxa la yiraahdo aynu iyagana baran doonaa qodobka kale aynu ku eegi doonaa the rules-kii hoos imanaya sida product rule-kii oo kale okay product rule-kii sida chain rule-kii sida quotient rule-kii okay qodobadana waynu eegi doonaa waxyaabaha kale aynu eegi karno waxa kamid ah differentiation of trig functions trigonometry functions-kii iyagana iyo sidii loo derive gareynayay waynu eegi doonaa waxa kale aynu eegi doonaa differentiation of logarithm functions waxaan la yiraahdo log functions-ka iyo sida loo derive gareeyo qaybta ugu dambaysa ka dhigi doono insha Allah marka waa mowduucyo aad u muhiim ah siday u kala fududiin baynu soo kala horeysiin doonaa iskula qabsanayaan isla markaasina sida aanan fahankaaga u luminin ayaan insha Allah u soo kala horeysiin doonaa marka intaan midnaba kuwan eegin let's first try waxaan la yiraahdo marka ugu horeysa aynu eegno waxaan la yiraahdo gradient okay waayo differentiation marka la leeyahay it's all about gradient buu ku saabsan differentiation-ka gabigiisba marka gradient-ku waa maxay gradient of a line gradient-ka line ama curve is a measure waa halbeeg iyo cabir gradient-ka line-ku ama curve-ku waa halbeeg ama waa cabir aynu ku cabirana maxay a rate of change waa halbeeg ama waa cabir aynu ku cabirayno isbedel baynu cabirayna okay isbedel baynu cabirayna ama steepness waxa la yiraahdo inta uu lane-keenaasi steep yahay ee uu toosan yahay ama curve-keenaasi toosnaantiisa ayaynu markaa cabirayna ama change from one point to another point isbedel ka tagaya hal bar oo tagaya hal bar oo kale for example imika haddaynu soo qaadano let's say halkan waa x axis-kii kana waa y axis-kii waa Cartesian plane-kii on qayb ka soo qaatay waxaan markaa sawiray a line-kaasna L1 baanu bixiyay si aan line-kaas inta uu isbedelay ama inta uu steep yahay oo toosan yahay si aan u soo saaro waxaan u baahanahay symbol inaan doorto laba barood bartaas iyo bartaas marka change-ka bartaas ilaa bartaas waxa ay siinaysaa maxay toosnaanta line-kaas ama isbedelka ku dhacay line-kaas okay halka waxaan u bixinayaa point-ka A halkaana waxaan u bixinayaa point-ka B point-kan A waxa uu leeyahay coordinates x iyo y waayo point kasta x iyo y buu leeyahay coordinate system-kii baa sidaa odhanaya point-ka B na waxaan ka soo qaadayaa inuu leeyahay x2 y2 okay sababtoo ah kan x1 baan u bixinayaa kana x2 kana y1 kana y2 si aan hadaba gradient-ka u soo saaro
gradient-ka m baynu usoo gaabsan doonaa si aan m usoo saaro m waxay la mid tahay the change in x change in y okay sorry change in y isbedelka y-da ku dhacay oo loo qaybiyey change in x isbedelka x-ka ku dhacay oo macnaheedu tahay inay intaasi la sii mid tahay dee y-di way isbedeshay iyadoo y1 ahayd bay 2 tagtay salaajdigeed y2 minus y wayna labadaa kala jaro say tan 1 baa u bixi tanna 1 baa u bixi okay so y2 minus y1 over x2 way isbedeshay minus x1 that's what we call the gradient of any line gradient-ka line kasta qaydada yar fudud baynu ku helaynaa isbedelka ku dhacay line-keena gradient-kiisa ama isbedelka steepness-kiisa iyo inta uu line-keena istoosan yahay waxaynu ku helaynaa formulada yar waa labada y oo la kala jaray oo loo qaybiyay labada x oo la kala jaray haddaba noocyo kala duwan buu gradient-kaasi leeyahay types of slopes ama gradients magaca kalead u maqlaysaana waa slope noocyada gradient-ku haddaba waa maxay qaybo kala duwan bay u qaybsamaan tusaale ahaan mid baad arki doontaa sidan oo kale kan hadduu yahay Cartesian plane-kii kaasi waa x axis-kii kana waa y axis-kii okay waa line kor u kacaya line-ka kor u kacaya the positive slope buu leeyahay slope-kiisu waa positive marka leeyahay ama slope marka leeyahay gradient ma ujeedaa marka positive slope buu leeyahay kaasi alright aad ka filan doontaa another one sidan oo kale noqon doona hadduu kaasi x axis yahay kana y axis yahay mid baa jiri doona dee hoos u soo dhacaya okay mid baa jiri doona hoos u soo dhacaya hadduu line-kaasi hoos u soo dhaco slope-kiisu waa negative okay kaasi waa negative slope marka arday waxaad la ogaataa mar kasta oo line-keenaasi kor u kacayo slope-kiisu waa positive hadduu mar kasta hoos u dhacayana slope-kiinu waa negative way xabadda saddexaad aad filan kartaa waxa weeyaan inuu sidan oo kale noqdo kan waa x axis kana waa y axis okay what about haddii uu vertical noqdo line-kaagii hadduu line taagan noqdo maxaad u malaynaysaa laymanka taagan waxay leeyihiin undefined slopes slope-koodu waa undefined ma qeexna sababtoo hadde meel ku dhamaanayba lama garanayo okay meel ku dhamaanayba lama garanayo number 4 waxa weeyaan sidan oo kale inay kugu timaado this is x axis and this is y axis line-kaagii maanta horizontal buu noqday marka horizontal noqdo maxaad ka filaysaa dee wax change oo ku dhacay y-daba ma jiraba okay haddii imika halkaas aynu soo qaadano dee y-di bartaasun bay taagantay intan oo dhan y-di bartaasun bay ku ciyaaraysaa value-gaas so there is no change in y mar walo y-di la kala jaro 0 bay soo baxaysaa sababtoo wax isbedel kuma dheen haddii for example aad imika 2 unit hore u qaado isla 2 unitna dib u soo qaado dee wax isbedel oo sameysay ma jirto halkii aad ka dhaqaaqday un baa taagan tahay sidaas la mid ah slope-keedu kan waxa uu noqonayaa 0 slope sababtoo there is no change in y y-di wax isbedel oo ku dhacay ma jiro haddaba laymanka toosan afarta slope midkoodun bay yeelan karaan ama waa positive slope ama waa negative slope ama waa undefined slope ama waa 0 slope haddaba here it comes marka uu differentiation ku imanaya haddaba waa marka haddaynu u baahano slope-ka line-ka toosan dee aadir qaacidadanu baynu ku bedelanaa laakiin what about kan oo kale bal ka waran this is x axis and this is y axis we have this partial curve kaas baynu haysanaa imika this is not a line this is the curve y equal f of x y waxay la mid tahay some function of x okay ayay la mid tahay haddaba saynu ku soo saaraynaa curve kaas saynu ku soo saaraynaa slope-kiisa ama tiiradiisa that's what we call Soomaaliga tiiraynu ku odhanaa tiiradiisa seebaynu ku soo saaraynaa si aynu tiirada u soo saarno we have to use dy by dx the concept of derivative the concept of differentiation waynu isticmaalnaa difference in y divided by difference in x ama derivative of y with respect to x is equal to kaas macnihiisu waa maxay y is a measure sidii oo kala daweeyaan y is a measure of rate of change kanada wuxuu cabirayaa isbedelka ku dhacaya y-da iyadoo loo eegayo isbedelka ku dhacaya x-ka laakiin markan waxaynu u bixinaynaa gradient function markan maaha line toosan maaha marka meeshan la joogo
waa gradient function another function weeyaan. Okay, for example let's say tusaale ahaan oo kale f of x waxa ay kula mid tahay tusaale ahaan oo kale 2x cubic minus 3x square plus 2x minus 1 kan oo kale lagu oranayaa de soo saar gradientkiisa. How can you find this one? See that gradient is also sarsa because kan wuxuu noqonayaa cubic equation buu noqonayaa oo line buu noqonayaa. Marka bartaas oo kale hoos buu soo dhacayaa waa decreasing, halkan oo kale waa constant oo waa zero, ma jiro wax gradient ay, halkan oo kale waa increasing oo kor buu kacayaa. So speed bedel baa ku dhacaya, decreasing, zero, increasing. Then ma helaysid inaad maaragtay si toos ah u soo hesho. Okay, si haddaba aad kaasoo kale u soo hesho maaragtay gradientkiisa, we need waxaan u baahanaynaa what we call a line. That's why baynu line-ka usoo horreysiisanay. Line baynu u baahanaa. Waxaynu dooranaynaa one single point on the curve. Curve-keena baynu hal point ka dooranaa. Deetana waxaynu soo marinaynaa line toosan baynu soo marinaynaa. Line-ka magaciisa waxaa la dhahdaa tangent baa la dhahdaa. Tangent-ku waa line toosan oo curve-keena ka taabanaya one noun point, hal bar oo cayiman oo si toosan loo garanayo. Haddaba haddii aynu soo saarno gradient of that tangent, haddii aynu gradient-ka tangent-ka soo saarno, we should be able to find the gradient of the curve. Marka waxaynu awoodinaa inaynu soo saarno gradient-ka point-kan, gradient-ka curve-keenan at any given point, inagoo point kasta oo nayla siiyey isticmaalayna. haddaba dhowr hab oo lagu soo saarayaa jira gradient-kaas inagoo isticmaalayna waxaynu ku soo saari karnaa from first principle inagoo isticmaalayna from first derivative inagoo isticmaalayna ama inagoo isticmaalayna from second derivative. Way. Bal hadda waynu imika eegno differentiation from first principle inagoo isticmaalana. Okay, kaasaynu ugu horeysiinayna. Marka dambena waxaynu eegi doonaa insha Allah inagoo differentiation-kii caadiga ahaa ee first derivative-kii iyo second derivative-kii isticmaalana. Haddaba differentiation from first principle muxuu leeyahay? Dee sidan oo kale u leeyahay. Curve-kii soo qaad aynu markii hore tole ka soo waramayna. This is the x-axis and this is the y-axis. Okay, partial curve-kii baynu sawiraynaa. Let's say halkan oo kale ka soo baxay saas oo kale u soo saaray. Imka function-kan waxaynu u bixinaynaa y equal x square tusaale ahaan oo kale. Haddaba si aan u soo saaro the gradient of this curve marka ay y la mid tahay x square si aan u soo saaro simply waxaan dooranayaa this point baa la siiyay point-kan waa la siiyay point-kan oo kale tusaale ahaan oo kale marka point-kaas the x-tc lama garanayo oo waa tan laakiin y-diisi waxa weeyaan the x square. Okay, waxaan rabaa inaan kaa kugu soo cadeeyo kugu soo proof gareeyo from first principle. Another point aynu qaadano tusaale ahaan oo kale that point. Okay, point-ka markaynu qaadano halkan x way isbedeshay y-diina way isbedeshay. Okay, inta ay x ku isbedeshay distance-ka let's call it h aynu h u bixino. Okay, bal halkan aynu h u bixino way point-kaas haddaba maxay noqonaysaa point-kaas waxay noqonaysaa x-tiis waxay noqonaysaa x plus h bay noqonaysaa point-ka x-tiisu y-diisina maxay noqonaysaa the internal la square sababtoo ah y waxay la mid ahayd x square x plus h square bay noqon doontaa halkaasina. Okay, way haddaba gradient-ku muxuu la mid ahaa markii hore tolo weynay ka soo waranay the m waxa lagu helayay simple m waxa lagu helayay labada y oo la kala jaray oo loo qaybiyay labada x oo la kala jaray weynagii markii hore tolo ka soo hadalnay sababtoo ah that line baynu rabnaa the line-ka isku xidhaya bartaas inaynu gradient-kiisa soo saarnaynu doonaynaa. haddaynu line-ka gradient-kiisa soo saarno then waxaynu awoodaynaa inaynu exactly ama approximately ku dhawaad inaynu curve-kan soo saari karno gradient-kiisa. All right, m2 marka waxay noola mid tahay labada y oo la kala jaray oo loo qaybiyay labada x oo la kala jaray way labadii y iyo labadii x baadi doon haddaba. Okay,
labadii y waxa weeyaan x plus h, okay, x plus h square oo y2 inoogu taagan oo laga jaray y1 oo inoogu taagan maxay x square oo loo qaybiyay. All right, oo loo qaybiyay x2 oo inoogu taagan x plus h oo laga jaray x1 na waxa inoogu taagan tahay the value of x. way haddaba intan un baynu ka shaqaysanaynaa. x plus h square macnaheedu arday waxa weeyaan the x plus h times another x plus h oo waynagii lahayn powerku wuxuu inoo sheegaa inta jeer aynu base-ka isku dhufanayno laga sii jaray x square ka halka inoo taala oo loo qaybiyay labada hoose maxaa ku dhacaya de labada x way isla baxayaan x ta iyo x taasi sababta midna waa plus midna waa minus xagga hoose maxay igu soo haraya marka h baa igu soo haraysa. way haddaba haddaynu intan sara fidino waxa dhacaya inaan mar sidii caadiga ahayd expansion-ka aynu u samayn jirnay mar x tan x ka ku dhufanaya marna x kan h ta ku dhufanaya mar h tan x ta ku dhufanaya marna h ta iyo h ta ayaan isku dhufanaya inta ila samee haddaba haddaan x ta x ka ku dhufto waa x square haddaan x ka h ta ku dhufto waa xh haddaan h ta x ka ku dhufto waa hx ama xh sida doontaba dheh haddaan h iyo h isku dhuftona waa h square xaggaana x square bay sii taalay xagga hoosena h bay taalay. way soo group gara haddaba halkan waa x square labadani waa xh iyo xh waa 2xh xaggaana waxaa igu soo hadhay h square, okay, xaggaana waxaa igu soo hadhay minus x square divided by h. way maxaa dhacaya haddaba waxaa dhacaya inay x square iyo x square isla baxaan halkaa maxaa ka soo hadhay 2xh plus h square divided by h. way maxaa soo hadhay haddaba waxaa soo hadhay 2xh plus h square all over h. way markaa derivative-kii ama gradient-kii ayaa intan noola mida. haddaba haddii aan factorize gareeyo xagga sare h baa dee ka wada baxaysa halka haddaan h ka saaro waxay soo hadhaya 2x halkaana haddaan h ka saaro waxay soo hadhaya h xagga hoosena waa h. way haddaba maxaa dhacaya dee h tan iyo h tan inay isla baxaan baa dhacaysa kadibna maxaa soo hadhaya waxaa soo hadhaya 2x plus h. haddaba waxaad ogaataa ardayow marka aynu qaadanayno this curve markaynu curve kan soo saarayno maaragtay gradient-kiisa this h this distance kani turns to zero buu isku bedelaya that follows taasoo macnaheedu tahay h turns to zero h waxaynu u qaadanaa inay approach garanayso ama ay ku dhawaanayso zero ama ay zero noqonayso marka halkii h haddaan zero ku bedesho therefore waxaan leenahay the gradient of this function waxa uu la mid yahay 2x buu la mid yahay sababtoo ah h ta halkeed waxaynu ku bedelanay zero. that's how easily we find sidaa yara fudud baynu markaa kusoo helnay maxay the gradient of this curve using the first principle. marka differentiation from first principle saasuu qabaa waa inaynu soo qaadano maaragtay qaacidadii gradient-ka kadibna labadii point aynu dooranay aynu ku bedbedelano kadibna halka aynaan ilaawin markaynu marayno inay h markasta zero approach garaynayso the factorizing-kana waad fahmaysaa sidaa yara fudud baynu kusoo helaynaa. there is another way hab kale oo lagu soo helaya baa jira differentiation-ka amaba aan idhaahdo gradient-ka function-kan haddii lagu siiyo habkaa kalena waxaa la dhahdaa for example the first derivative ama second derivative oo isaguna jira. marka casharada dambe insha Allah ku eegi doonaa kana halkaasaan kusoo gabagabeynayaa intaas ka soo adkow insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.